Assalaamu calaykum. Waxaan idin soo gudbinaynaa sheeko taxane ah oo ku saabsan ninkii ugu hantida badnaa Baabila, The Richest Man in Babylon. Bansir waa karneeto sameeye, kaasi oo aad uga niyad jabsanaa noloshiisa. Haddii uu geesaha eegay, waxa u muuqanaya dadka gurigiisa yar sida murugada leh u eegaya, taasoo ay ka muuqato saboolnimada haysata. Waxaa kale oo u muuqda halka uu biraha ku tumayo iyo karneetada uusan weli dhamayn samayntiisa ee meesha u taalla. Xaaskiisa ayaa marar badan iridka guriga soo istaagaysa, eegmadeeda daruufeysan ayaa laga dareemi karaa hadalka ku duugan oo ah raashinkii inuu dhammaaday, lagana sugayo inuu dhaqso u dhammeeyo karneetada si uu u soo iibiyo dadka lacagta uu ka helo, reerkana u keeno cunto ay karsadaan. Si kastoo ay tahayba, jirkiisa oo aad u qara weyn, xoogga iyo muruqa ka muuqanayo ayuu darbiga isku tiirinayaa. Maskaxdiisa tabarta daran waxaa ka dhex guuxaya weydiimo oo ugu warcelin layahay. Qoraxda kulaylka ah ee lagu yaqaan dooxada webiga Furaat ayaa dhakada ka garaacaysa si weliba naxariis daro ah. Dhididka ka shubmaya garkiisa ayuu daad ahaan ku sii marayaa, asaga oo sidii qulqulka ugu sii shubmaya kaynta timaha ah ee laabtiisa ku taalla. Dhanka shishe ee gurigiisa waxaa ka muuqanaya guriga boqorka ee aadka u qarada iyo quruxda weynaa. Dhinaca kale haddii uu eegayna, waxa uu muuqanaya qasriga daruuraha ku dhex jira ee guri diimeedka magaalada ah. Qasrigaas hooskooda ayaa waxaa ku dhex yaalla gurigiisa aadka u yar iyo guryo kale oo ayaguna aad u sabool ah, falxumana ka muuqato. Magaalada Baabila oo dhan ayaa sidaasi u dhisan, qasriga cirka ku dhawaaday iyo buulal dhulka ku dhegan, dad hantiduna ka tiro badatay iyo sabool aan cunto heli karin. Dhammaan waa la isku dhex qasan yahay, iyagoo aan wax qorshe ah iyo qaab ay u kala degan yihiin aan midna lahayn, ayaa dhammaan derbiyo korka sare looga wada hareeyay magaalada oo dhan si derbiyadaasi difaac ugu noqdaan. Gadaashiisa haddii uu u soo jeestay, waxa u muuqanaya gaari faraseed ay wataan dad hantiilayaal ah, kuwaas oo dadkii seelada ka ganacsanayay iyo saboolkii cagaha caddaa ay dhammaan u wada baneeyeen waddada ay marayeen. Balse isla markiiba dhammaan dadkii waxaa lagu wada dirqiyay in waddada loo baneeyo addoommada isdaba jooga ah ee mid walba uu xambaarsan yahay hanti bireed buuxda oo harag ka samaysan, taasi oo loo wado in lagu waraabiyo beeraha lusha ee guriga boqorka. Bansir aad ayuu ugu walwalsan yahay dhibaatooyinka haysta noloshiisa. Waxaa dhacaya oo dhanna waaba uu ka maqan yahay oo lama socdo, balse waa mid ujeeda. Waxaa hal mar dhagihiisa qabteen cod kaban la garaacayo oo aad moodid inuu garanayo codka noocaas ah. Haddii uu eegay codka dhanka ka baxayay, waaba kaban garaacihii saaxiibkiisa ahaa ee Koobi oo uu dhoola caddeynaya. Eebbe madax bannaanida ha kuu kordhiyo, jaalkayga wanaagsanow. Koobi ayaa gacan qaadis galkacayl leh ku soo dhoweeyey, kadibna hadalkiisii sii watay. Waxaaba marka hore kaa muuqata in eebbe wanaag badan kuu galaday, waayo waa adiga aan addoon la adeegsanayo ahayn. Rayraynta madax bannaanidaas aynu haysanno ayaan kula qaybsanayaa. Boorsadaada in ay cayilan tahay way ii muuqataa. Intii aad gacanta gelisid, iga sii 2 shilin bireed oo amaah ah oo aan hubo in aan kuu soo celin doono habeenka iidda ah. Ma aad waayi doontide, oo waan hubaa in laguu soo celin doono. Bansir ayaa hadalkaasi si murugo leh ugu warceliyey. Jaalkayow, haddii aan haysan lahaa 2 shilin bireed ah, cidba ma anaa amaahin lahaa, adigaba aad ahaatide. Kuma amaahiyeen, hantida keliya aan haysto ayay ii ahaan lahayd. Qofna hantida uu haysto oo dhan cid ma amaahiyo, cidda uu u dhowba ha ahaatee. Koobi ayaa qayliyey, isaga oo ka yaabay hadalka Bansir, kadibna hadalkiisa sii watay. 1 shilin bireed ah ayaad la'dahay, haddana halkan ayaad sidii taaladii meel u tiirsan tahay. Maad dhammaystirtid kareetadan? Miyay jirtaa si kale oo carruurtaada aad cunto ugu heli karto? Sidii aan kugu aqaanay sidaan ma ahayn jaalkayow. Meeday howlkarnimadii kaa buuxi jirtay? Ma wax baa kugu dhacay? Ma jiro ayaa ku haleeshay? Bansir ayaa yidhi, maya, ee riyo ayaa i haleeshay. Sidaan ayaan ku riyooday. Riyada aan arkayo waa aniga oo ah nin aad loo weyneeyo. Waa aniga oo ay suunka iga lulato boorso qurux badan oo haddana shilin bireedyo ka buuxaan. Waa aniga oo si madax bannaani ah shilin bireedyo ugu daadinaya dadka saboolka ah ee waddada hareeraheeda jooga. Waa aniga
oo dhar nuuc walba leh u gadaya xaaskayga iyo wixii kale oo aan ka helo in aan iibsado. Waa aniga oo haysta shilinbireedyo aad u tiro badan, heer aan u adeegsado sidii aan doono, anigoo aan gebi ahaanba ka baqayn saboolnimo in ay soo food saarto ilowsan hal maalin oo ayaha dambe ah. Waa anigoo dareemaya qanacsanaan aad u tiro badan. Waa aniga oo qaban shaqadan dhabar jabka ah ee aad igu taqaanid. Waxa aan ku riyooday xaaskayga oo aan lahayn haba yaraatee duuduubka wejigeeda iyo duruufaha adag ee nolosheeda iina dhoola cadaynaysa oo ay ka muuqdaan dhaldhalaalkii iyo rayrayntii waayihii aynu isguursanay. Halkaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybtii koowaad ee sheekadii ninkii ugu taajirsanaa Baabila. La soco qaybta labaad. waad ku mahadsantahay daawashadaada. Haddaba haddii aad ku cusub tahay channelka Ogaalsan, subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena cusub.